madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa kala hadlay gargaarka degdega ah ee abaaraha iyo mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo gudaha dalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo xasiloonida dalka, waxaana la wadaagay xogayaha qaramada midoobay halganka isku dhafka ah ee ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka wadaan gobolada dalka. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay aragtida madaxweynaha ee la xiriirta dib u qaabeynta mashaariicda horumarineed ee ay ka fulinayaan Soomaaliya, waxaana tilmaamay in talooyinka iyo soo jeedinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ay ku saleynayaan qorshahooda, sidoo kalena ay dardargelin doonaan doorka beesha caalamka ee gurmadka abaaraha ka jira Soomaaliya. Antonio Guterres ayaa ku bogaadiyay shacabka iyo dowladda Soomaaliya sida ay uga go'an tahay horumarinta hanaanka dhaqaalaha, deyn cafinta, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo xal u helidda duruufaha soo laalaabtay oo ay ka mid tahay abaaraha iyo fatahaadaha dalka ku dhufta.